madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa su'aalo adag oo madax xanuun ku riday kala kulmay wariye la yiraahdo Tchouaméni oo u dhashay dalka Congo. qaybtan labaad waxaan ku soo qaadayaa wixii dhex maray madaxweyne Macron, wariye Tchouaméni iyo madaxweynaha Congo Félix oo isna goor dambe ku soo biiray. wariyaha reer Congo ayaa su'aalaha u weydiiyay madaxweynaha Faransiiska Macron waxa uu ku bilaabay sidan: madaxweyne Macron, waxaan ognahay in dalkaaga Faransiisku uu ku lug lahaa oo ka qayb qaatay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda. sidoo kale Faransiisku wuxuu gudaha Congo soo geliyay jabhado hub iyo ciidamo gaar ah oo hubaysan, kuwaas oo mucaaradsanaa lana dagaalamay dowladdii Congo ee xilligaas. markaas kadibna waxa dhacday in 10 milyan oo qof ay u dhintaan dagaallo, gaajo iyo cudurro. haddaba muxuu yahay ujeedka Faransiisku? muxuuse Faransiisku ka damacsan yahay xalka masiibadan weyn? anigu shakhsiyan waxaan ku leeyahay Macron, idinka oo Faransiiska ayaa sameeyey qaraxan weyn iyo dhibaatooyinkan ka dhacay Congo. Faransiiska ayaa sababay oo ka dambeeyay dagaaladii iyo mashaakilaadkii amni xumo iyo colaadihii ka dhacay bariga dalka Congo. ma damacsan tahay inaad hagaajiso wixii aad kharibteen oo aad magdhow ka bixisaan kana garowdaan dhibaatooyinkii aad u geysateen shacabka Congo? madaxweyne Macron, su'aashayda labaad ee aan ku weydiinayo waxay tahay: sidaan ognahay, jabhadihii hubaysnaa ee dilalka, kufsiga iyo barakicinta ka geystay gudaha Congo waxa taageerayay dowladdii Rwanda ee xilligaas jirtay. wax kaleba iska daayay, dowladda Faransiisku xitaa xilligaas way diiday inay cambaarayso Rwanda. oo kale qaramada midoobay oo xilligaas fadhi ka yeelatay colaadihii Congo waxay qaramada midoobay xilligaas soo jeedisay in cunaqabatayn la saaro dowladdii Rwanda. laakiinse dowladdii Faransiiska ayaa arrintaas xoog ku hor istaagtay, idinkoo isticmaalay awoodda codkiina diidmada qayxan ee veto. waxaas oo ceeb ah iyo dhibaatooyin ah waxaad u samaynayseen idinkoo dantiina eeganaya. ayaad difaacayseen jabhadihii Congo ka dagaalamayay si ay idinku sii boobaan khayraadka iyo macdanta Congo. marka bini'aadam ma la idinku tilmaami karaa? xisaabta miyaanay idinku jirin in maalin la idinkala xisaabtami doono sida maanta oo kale oo ceebihiinna bannaanka la keeni doono? ma dareemaysaa dembi kaasoo ku saabsan dilka in ka badan 800 oo kun oo qof oo reer Rwanda ah oo aad sababta dilkaas wax ku lahaydeen? miyaadan dareemayn dembiga dilka 10 milyan oo reer Congo ah oo aan waxba galabsan? waxaasoo dhiba iyo dembiyo dagaal ah miyaanay kuu muuqan oo aadan dembiga intaas la eg dareensanayn? waxaas oo dhiba idinkoo Congo ka geystay oo weliba aydinaan qiran oo wax garowshiya iyo magdhow ah ka bixin, sideebaad maanta nooga dalbanaysaan inaan xiriir fiican yeelanno oo ay Congo iyo Faransa noqdaan dowlado saaxiiba? su'aalahaasi daba joogga ee wariyaha reer Congo madaxweyne Macron waxa uu kaga jawaabay qaab dafiraad iyo ismuguysiin ah. dhanka kalena Macron waxa uu ka calaacalay kacdoonka Faransiiska looga soo horjeedo oo ka socda Afrika, wuxuuna jawaabihiisa ku bilaabay sidan: xaaladaas aad xustay iyo labada dagaal ee sababay dhimashada malaayiin qof oo dalkaaga ah, si guud ayaan u diidanahay oo aan uga soo horjeedaa in dhibaatooyinkii aad xustay oo dhan inay mas'uuliyadda Faransiiska ku wada dhaceen. dhibaatooyinkaas oo idil waxaan uga jeedaa dhibkaasi oo dhan kuma wada dhicin mas'uuliyadda Faransiiska ama Faransa ma wada lahayn sababta ay ku dhaceen. marka hore waa inaan caddayno sida xaalku ahaa xilligaas. sanadkii 1994 waddankaaga kala dambayn kama jirin, ma jirin ciidan qaran, mid ammaan iyo nidaam toonna. tani waa arrin xaqiiqa. waxaa waajib ah in aynaan dibadda ka baarin ama ka raadin dembiilayaashii ka dambeeyey colaadihii iyo dilalkii dalkaaga ka dhacay. maaha dembiilayaashii dagaalada in laga baaro meelo ka baxsan Congo ama Rwanda oo Faransa la iskaga eedeeyo. waajib weeye inaan la iloobin dadkii la laayay oo ay cadaalad helaan. waa lama huraan. haddaba waxaa isweydiin mudan maxay tahay mas'uuliyadda waajibka ee loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si arrimahaas dhacay wax looga qabto?
faransa iyadu ma qabanayso hawshaas mas'uuliyadna kama saara sidii loo heli lahaa ama loo hirgelin lahaa nidaam cadaaladeed oo dhaba. faransiiska ha ku eedaynina arrimo aad idinku mas'uul ka tihiin. arrimihiinna gudaha idinkaa ka mas'uula. wixii dembiye ka dhacay dalalkiinna mas'uuliyadda idinkaa leh, gaar ahaan madaxdii Kongo xukumaysay xilligaas. marka koowaad mas'uuliyadda idinku qaata. annaguna wixii dhinaca faransa ah waan qirsannahay qaabkii ay faransa ula dhaqmi jirtay afrika inay wax badan oo khaladaada ku jireen, laakiinse hadda faransa gebi ahaanba meesha waa ay ka saartay oo waa ay beddeshay habdhaqankeedii siyaasadeed. faransa kama maaranto afrika. hadda waxaan rabnaa inaan u macaamilno si wanaagsan oo saaxiibtinimo leh, iyadoo aysan meesha soo galayn khaladaadkii horeyna looga tabanayay. waan la soconnaa sannadihii u dambeeyey in afrika meelaha qaarkood ay ka soo ifbaxeen kacdoon lagu diidan yahay faransiiska, kaasoo saameeyey xidhiirkii aan la lahayn waddamo dhowra. laakiinse arrinkaasi kuma iman khaladaad ama xadgudub ay geysatay dowladda faransiisku. kacdoonkaasi wuxuu ku yimid khalad fahan, khalad laga fahmay faransiiska iyo dacaayadona laga faafiyey si loo kala jaro afrika iyo faransa. sidoo kale waxaa sababay quwado dadaal ugu jira inay hantaan dhaqaalaha afrika, kuwaasoo doonaya inay afrika u soo suuq geeyaan wax soo saarkooda, iyo waddamada afrika qaarkood oo ay taladooda la wareegeen hoggaamiyaal dhallinyaro ah oo degdeg ka muuqdo, oo aan lahayn khibrad badan, isla markaana uu ka muuqdo bisayl la'aan siyaasadeed, sida ay xusayaan daraasado hordhaca oo arrintan laga sameeyey. faransa kama maaranto afrika. waxaan ka codsanaynaa afrikada xidhiirka dhow naga dhexeeyey inay isdejiyaan oo nala siiyo fursad kale oo aan ku hagaajinno xidhiirkeenna iyo wixii nala ka tabanayey. waan hubaa inay faransa ka dhabaynayso isbeddelka siyaasadeed ee ku dhawaaqday. dhinaca kalena madaxweynaha dalka Kongo Felix ayaa la siiyey hadal kooban oo uu ku soo gebagabeeyey kulanka, maadaama isaga marti loo ahaa. madaxweynaha Kongo ayaa isna hadalkiisa ku bilaabay sidan: anigu kuma kalsooni ujeedka kuwa nala collaytamay, igamana degayso qiilka beenta ah ee ay faransa u samaysanayso si ay u daboosho dembiyadii ay horay u gashay. xilligani maaha waagii aan iska qaadan jiray wax kastoo naloo sheego. wax badan ayaana isbeddelay. waxaase isweydiin mudan, sidee bay ruwaanda ugu suuragelaysaa inay ka taajirto biliqaysiga iyo boobka farsamaysan ee ay ku hayso khayraadka macdanta Kongo, oo ay soo waday muddo 20 sano ah, oo ay weliba u dhacayso khayraadkeenna waddamo kale oo shisheeye. ruwaanda taas niyadda yaysan gashan wax soconaya ma aha. ruwaanda deganaan iyo horumar ayaa ka socda. marka inay iyaduna nagu taageerto jabhado Kongo colaad ka wada si ay khayraadkeenna u dhacaan xaq ma aha. si kastaba ha ahaatee, annaga afrikaan ahaan teenu idinma khusayso. annaga ayaa ka heshiinaynaa si kastoo aan isku hayno, waayo ma kala maaranno. laakiinse reer galbeedka ayaa wax kasta oo dhib ah ku lug leh, waxaana sabab u ah annaga afrikaan ahaan caqlixumadeenna iyo danaysigeenna gaar ahaaneed. annaga Kongo gaar ahaan waxaa ceeb noogu filan in dalkeenna Kongo yahay waddan qani ah khayraad ahaan, haddana la leeyahay Kongo dadkeedu way gaajoonayaan. haddase waan soo caqlisannay. la yaab cidna yaysan ku noqon inaan soo jeesannay. waxaana baraaruga afrikaanka loo sababayn karaa 2 arrimood: qaar dantu ay ku khasabtay oo meel ay u baxaan garan waayey, iyo qaar si dhab ah u caqliyaystay. waxaan ku soo gebagabaynayaa, adduunka waxaa ka jira gacan wax bixisa iyo gacan wax qaadata. waxaan doonaynaa inaan ka korno gacanta wax qaadata. inta ka horaysana haddii aan wax qaadanayno waan ka fiirsanaynaa inay bixintaasi shuruudo iyo waxyaabo kale la socdaan. ciddiina wanaajisa waannu wanaajinaynaa. ciddii saaxiibbo isku dan ah nala noqonaysa qalbi furan ayaan ku soo dhowaynaynaa. ciddii tidhaahda afrika waxay u socotaa dhinaca ruushka iyo shiinaha, waxaan u aragnaa qolo nagu gardaroonaysa oo caqligeenna caayaysa. annagu ma nihin miyaa ummad madax bannaan oo xor ah oo garanaysa meesha ay dani ugu jirto. halkani waa afrika.
waa Kinshasa, annaga ayaa naqaan maslaxaddeenna. maanta cidna naguma cabsi gelin karto. ciddaas ayaa doonaysaa inaad xiriir la yeelataan, nala kumana ceebayn karo. Faransiiska oo dilay malaayiin qof oo aan waxba galabsan, kama oggolaanayno inuu annaga casharana siiyo. ummad walba waxay jeceshahay inay si karaamo iyo cizi leh u noolaato, taasna waa in la tixgeliyo.